waxaa maanta magaalada Hargeysa si ballaaran loogu soo dhaweeyay aqoon-yahan Cabdilaahi Cumar Saleebaan. aqoon-yahanka ayaa waxaa soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay gudoomiyihii hore Olombikada Somaliland Xasan Waraab Cadde iyo dadweyne tiro badan. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee Olombikada Somaliland Xasan Waraab Cadde waxaanu yidhi waxaan ku soo dhaweynayaa Somaliland runtii waa markii ugu horreysay ee uu yimaado Cabdilaahi Cumar Saleebaan oo anigu intii aan barigan ciyaari jiray Soomaaliyadii hore ama barigii barisamaadkii oo asaguna ahaa dhinaca feerka boxingka waxaan dadkii bilaabay feerka muddo dheerna imika dalka ka maqnaa degan dalka Mareykanka waxaan jecelnahay anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada Somaliland inaad ku soo dhawaato Somaliland welcome wixii allaalay wixii garashadaadii ama aqoontaadii hore ama tii dambe imika aad Mareykanka kala timid aad kala soo noqotay waxaan ku faraxsanahay inaad wax la mid ah ku soo kordhin doonto aad iyo aad u soo dhaweynayaa Cabdilaahi Cumar Saleebaan oo ah sportsidii waaweynaa ee waddankana wax wanaagsan u soo faa'iideyn doona aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. gabagabadii waxaa halkaasi isna ka hadlay aqoon-yahan Cabdilaahi Cumar Saleebaan isagoo u mahadnaqay dadweynihii soo dhaweeyay faahfaahin ku bixiyay ujeedada socdaalkiisa. waan salaamayaa dadweynaha aad ii soo dhaweeyay oo isu kay xilsaaray oo walaalahay ah oo aad ii soo dhaweeyay waan wada mahad celinayaa bahada saxaafadda iyo dadweynaha kulligood oo lafteen intaas ka bacdi maantay ma bahadli karaba farxadda maaragtay saaran aad hadal uma wadi karo laakiin waxaan inii sheegayaa dadweynaha Somaliland oo dalkaygii aan ku soo noqday waxaan aad iyo aad inuu sheegayaa inaan inii wado qalab sports ah in aan inii wado inaan inii faa'iideeyo oo dhalinyarada soo kacaysa iyo kuwa kaleetaba aan waaweynba iyo kuwa yararka jiilka soo kacayba inaan wada faa'iideeyo oo xagga self defense-ga iyo xagga kickboxing-ka inaan aad u tababaro iyo tababaradii Soomaaliya aan haystay iyo tababarihii hadda aan dibadda ka soo qaatayba waxaan soo hamiyay in aanan tababarkayga la dhiman intaan wadamada ajnabiga jiro oo wadamadaas kala jiro inaan dadkaygii iyo dalkaygiiba uga faa'iideeyo tababarkayga oo aanan la dhiman ayaan u soo kacay dalkaygana waan jeclahay oo lafteen waana mahadsantihiin sidaad ii soo dhaweysan anigana sidaas iska daran baan jeclahay maantana farxadayda aan Hargeysa la dhex joogo. Saciid Cabdi Dheere, Somali News TV, magaalada Hargeysa.